xildhibaan Zakariya ayaan ku bilaabayaa xildhibaan Zakariya aad iyo aad baad u mahadsantahay sida sharafta leh barnaamijka aad inaga qayb galaysid shirkan baydhabo ku soo dhamaaday iyo qodobada laga soo saaray iyo arrimaha laga muujiyay inkastoo adigu xukuumadii aad ahayn inta badan xukuumadda ay la hadlayeen hadana dawladii ayaa ka tirsan tahay baarlamaankii ayaad xubin ka tahay sidee u aragtaa qodobadan soo baxay iyo hadalhaynta iyo shirkan iyo arrimaha dhan oo socdaba waxay u muuqataa hadda si waxaan biafraa kale taa oo goosashaha oo kale ay u muuqataa oo laba dawladood oo Soomaaliya midna ay xamar ka jirto midna gobolada ay tahay nimanka gobolada ay daal ku run yahay dawlado gaar noqdaan arrintaasina arrin dhaawacaysa way ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed arrin loo baahan yahay ma ahayn waxyaalaha ay sheegeen waa laga yaabo qaarkood inay gar ku leeyihiin oo dawladda ay ka sheeganayaan hadda waxay ahayd inay ka wada xaajoodaan inay media inta soo fariistaan yiraahdaan sidaas yiraahdaan waxay noqonaysaa qiimeednimo ama gaar ku run yahay qaab maaragtay diidma oo ka hor imaanshaha oo iska jabhadeen ay noqonaysaa jabhadna anagu waa ka daalay tabaruma hayno dawladda dhexe inaysan waxyaalihii laga wada rabay samayn oo wax badan u dhiman yihiin shir kuma jiro laakiin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay oo kamid tahay arrimaha dibadda in faraha looga qaado weeye waayahay aad iyo aad haddii ay iyagu leeyihiin dhinac bay u badatay arrintaa waxba kama jiraan waayo waxaan ogahay in madaxweynuhu Masar tegey oo Sacuudiga tegey oo Imaaraadka tegey intuusan Dooxa tegin marka Dooxa mamnuuc miyaa in la tagaa waayahay mas'uuliyiintaas qaarkood ayaa khadka ku jira arrimaha adigu aad ka hadashay ee dawladda looga baahan yahay la tashiyada iyo inay shirka tagto iyo baarlamaankii ayaa adigu ku jirtaa ee dawladda arrimahaasi ma u jeediseen diyaarsa ma u tihiin inaad u jeedisaan ma iyada la diyaaro inay tagto umaleyn maayo inay halkaana markii loogu imanayay dawlad shiraysay goboladana waa tagtay dawladdu waa inay ogtahay oo gobolada haddaysan dawladda dhexe la jirin hadii waxa weeye wax soconaya ma jiraan dawladda gobolada ka kooban tahay degmooyin xildhibaan Zakariya gobolada joogay baa qisaday oo iyagu jawaab samaysay moogta xamar iyo goboladu waa isku mid dalku waa hal dal weeye magaalada xamar madaxda ay tahay dawladda magaalada xamar bay joogtaa goboladu waxay weligeedna saasay ahaan jirtay gubernatoriyaal baa jiri jiray gubernatoriyaashu waxay wakiil ka ahaayeen dawladda dhexe ayaga laftigooda hadda dawladda dhexe ay wakiil uga yihiin gobolada ma garata gobolada haddaan waa madax banaan yihiin dee 20 dawladood oo isna yaacayso wada siman adduunka kala shaqayso xildhibaan Zakariya iga xildhibaan Zakariya raaliga oo xildhibaan Zakariya adoo iga raaliya dawladdu waxay ku timid laguna soo doortay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo adinka xildhibaanada adigu hadda xildhibaan baa tahay Puntland baa laga soo doortay wasiirka hadda ku jira iyo xubnaha kale matalaya baarlamaanka xubnaha ku leeyihiin maamul goboleedyadu wadankii ayaa saas dastuurkii baa lagu qoray way ka sida hadda hadalka loo dhigayo oo ama adigu aad u xustay waa tir wadanku wuxuu lahaan jiray maamul gobol gudoomiye gobol nimankan way iskala weeyeen oo madaxweynayaal dastuur leh baarlamaan leh bay sheegayaan waraada jeeri leeyahay iskala weynii waxa si jirto dadka Soomaaliyeed baa loo baahan yahay in loo shaqeeyo oo dawlad xoog leh oo adduunka uga shaqeysa oo iyaga ka dhex shaqeysa loo sameeyo haddii aanu isku haysano fiiri gobolada degmooyin bay ka tirsan yihiin degmooyinka qabaa'il baa degan haddii hadda degmooyinku kuwa gobolada jooga mid walba ku kacaan oo yiraahdaan muxuu ahayd sida hadda kuwa ay leeyihiin si goorma dawladda dhismaysa gobol baa jiraya markaas soo adiga waxaa loo baahan yahay dawlad ictimaad qaysar wama lillahi illah dawladdu waxay ku khaldan tahay annagu waa joognaa wakiil baanu ka nahay gobolada iyo degmooyinka iyo shacbiga oo dhanba annaga ku qabsanayna goboladu inay iyagu joorfalaanna ogolaan mayno sababta waxa weeye annagu waxaanu meeshaan u joognaa oo naloo soo doortay wax kale ma aha dadka Soomaaliyeed oo dhan dad wakiil ka ah inay dawladda dhexe ka tirsan yihiin idan mas'uuliyad dadka Soomaaliyeed oo dhan ah baa jirta oo dawladda dhexe ah umaraysa oo annaga ah oo xukuumadda ah haddii xukuumadda wax khalado waxa weeye waanu ku qabsanaynaa laakiin in iyadii la dhinac ordo awood muxuu ahayd taageerahayd la qaato oo la yiraahdo arrimaha dibadda annaga maamulayna oo hadday tallaabo aadayso muxuu ahayd annaga inay nala kashato weeye dawladda Mareykanka waa federaal arrimaha dibadda iyada u madax banaan dawladda Hindiya waa federaal arrimaha dibadda iyada u madax banaan dawladda Ethiopia waa federaal arrimaha dibadda iyada u madax banaan maxaa dhexgeliyay arrinta tan arrimaha dibadda oo nimankan Imaaraadka oo aanu anagu ognahay barlamaankii Soomaaliyeed intuu mooshin ka keenay
uu ka saaray dalka oo aan ognahay waxyaalaha ay sameeyeen ciidamo inay samaystaan waxay rabaan inay sameeyaan yemen waxay ka samaynayaan aan ognahay waxay noogu soo celinayaan waxay rabaan in imaaraad kale inaanu noqono oo qabaa'il ah oo ilaa aamanu saa isu haysta oo dawladda iswada qabsada oo dawladda Soomaaliya aan saarin dadka Soomaaliyeed dawladda waxay rabaan gobolada waxaa laga rabaa nimanka mas'uulka ka ah madaxweynayaasha ka inay u dhaqmaan si mas'uuliyada dawladda dhexe waxay khalado had waa ku celinaya waa ku qabsanayna laakiin iyagu ogolaan mayno in iyaguna marka soo rabaan xildhibaan Sakariya adoo isoo koobaya dhageystayaasha qudhoodana waxa rabaa inaan fursad siiyo arrintan ah inay nimankan odayaasha ay ka didsan yihiin in dawladdu ay u badatay dhinaca qadar oo ay garab marayso Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dan badan Soomaalida ugu jirta sida ay ku doodayaan arrintaas adinka ma idin muuqata ka baarlamaan ahaan ma fiiri hadda dawladdu cilaaqaadkan diblomaasiyadda iyo haddii la ku ron yahay foreign policy arrimaha dawladdu waa wax ka baxsan muxuu ahayto gobol iyo degmaba wax ka baxsan weeye xataa wasaaradaha kale dawladda dhaxan shaqo ku lahayn wasaarad baa iskale ayada niman muxuu diblomaasiyiin inta ahaan jiray safiirada ahaan jiray joogaan wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawlad leedahay arrinta tan waxa weeye dawladdu sidii ugu fiicnayd anu sidaan qabo barlamaankana aan qabno waxa weeye qof arrinta koowaad dhexdhexaad inay tahay waxaa cadaynaya madaxweyne Masar buu tegay oo dawladdan qaadacay ka mid ah intuusan dawlad tegin wuxuu tegay Riyaad sida Arabiga tegay intuusan dawlad tegin oo laba jeer waliba kii dambeeyay hadda shirka carabta ku jiro wuxuu tegay meesha la yiraahdo Abu Dhabi buu tegay ra'iisul wasaaruhu waa tegay isagoo jooga shirkad dhinaciisa lagu saxeexay maxaa ahayto uusan ka warqabin oo dalka turba qabsanaysa intaas oo dhan waa la sameeyay maanta kaliya waxa la tegay in nalweyn la soo yiraahdo maxaa loo tegay dooxa waxay cadaynaysaa ayagu inay xiriir gaar ah leeyihiin imaaraadku hadday waxa istaan inay iyagu muxuu ahayto nooleeyeen waxaan u sheegayaa waa dadka Soomaaliyeed la ogyahay lacagta Soomaaliyeed imaaraadka iyada ayaa ka faa'iideysata annaga wax ka gadana shay kasta waa ka soo gadana يعني وارثنا الدولار اكسبورت امبورت waxay yiraahdaa annagu waxba naga ma qaadato macnaha dawladda Sacuudiga xoolo markii dawladda Sacuudiga xoolo markii waxay naga qaadataa xajimaado markay rabtana way qaadacdaa imaaraadku ayaka wax nagu qaba waa inay saa u gartaan waa ma santahay imaaraadka fiiri markii ay hadana xoriyad laga sameeyaan oo hadal ku yahay iyagu ciidan ay xukumaan oo sida rabaan yeelaan oo sida hadda وزيران سقطنا يمن يعلن 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 عنه سامي يذكره وهو مدح بنانيدا ayaa ka qiimo badan shilimaadka ma santahay oo baan maxaa tusdeed 20 sano dhibaato madax banaan la aan haysay nimankan waxay rabaan inay nagu celiyaan maxaa inaan madax banaanaan